dhageyso Radio Braawe kana dhageyso dhacdooyinka ka dhacaya dalka iyo dunida. Radio Braawe waa run sheega kaliya cidina si gaar ah uma raali geliyo ee runta ayuu ku hadaqaa. Radio Braawe waa warbaahintii ugu horeysay ee laga dhiso magaalada Braawe 88 megahertz shida si aad u dhageysato warar sugan barnaamijyo ku xiiso geliya. noqo saaxiibka joogtada ah ee Radio Braawe. ka dhageysa Radio Braawe wararka ka dhaca dunida dacaladiisa adigoo joogta hoygaaga ama goobtaada shaqada. ka dhageyso 88.3 megahertz. hadaba dhageyste wararka Radio Braawe waxaad dhageysan kartaa saacadaha kala ah 7:00 subaxnimo, 1:00 duhurnimo, 4:00 galabnimo, 7:00 fiidnimo iyo 9:00 fiidnimo. Cabdiwahaab Aadan Abdurrahmaan, Radio Braawe, Muqdisho. Zakir Usman Hassan, Radio Braawe, Hargeysa. Liban Qaran, Radio Braawe, Boosaaso. Maxamed Yaasiin Madi Maxamed Deeqalfa, Radio Braawe, Jowhar. Cabdullaahi Maxamed Ibrahim, Cabdullaahi Simane, Radio Braawe, Gaalkacyo. Raxiim Yuusuf Maxamed, Rasmi Ruuxi, Radio Braawe, degmada Walaweyn. Maxamuud Ali Abdullaahi, Radio Braawe, Baydhabo. محمد هابن حبيب راديو براوي دقمة أفقوي. إسماعيل محمود إسحاق مره راديو براوي ولا وين. أنا فيصل فاتح راديو براوي مقالة مقدشو. كدقيس راديو براوي وررك كدع الدنيا دا على ديسا adigoo joogta hoygaaga ama goobtaada shaqada. ka dhageyso 88.3 megahertz. warbaahinta Radio Braawe waa warbaahin madax bannaan oo dhexdhexaad ka ah siyaasadda caalamka. ka dhageyso mowjada dhererkeedu yahay 88.3 megahertz. saxafigu harweeya maxaa xaqiraya isagoon xumaan gelin xabsi loogu guraya baadi loogu xiraya xubbu ku sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo ha xasuuqin wariyaha. xog dhamaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tabinayaa. ku xurmeeya shaqadoo ha xasuuqin wariyaha. wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa. xabsi kaama mudno xaq bay kugu leedaho xor weeye saxaafaduye ha xasuuqin wariyaha. xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan. ka daa xasuuqa suxufiga. warbaahinta Radio Braawe waa warbaahin madax bannaan oo dhexdhexaad ka ah siyaasadda caalamka. ka dhageyso mowjada dhererkeedu yahay 88.3 megahertz. oo ka daa xasuuqa suxufiga. warar xaqiiqo ah sida ay u dhacayaan iyo meesha ay ka dhacayaan ku dhageyso dhagahaaga. kana dhageyso Radio Braawe 88.3 megahertz. taaro Radio Braawe. Manda iige waa isha wararka sugan. saacadda iminka goor sheegtada waxay soo dul istaagtay xilligii aad noogu barateen dhageystayaal war wixii dal iyo daafaha caalamka idin laga soo gaaray ee Radio Braawe.
bismillaahi araxmaani araxiim dadkana dhegaysanaya halkani waa raadiyo baraawe qodobada warka caalamka raadiyo baraawe haatan ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo walwal ka muujiyey halis ka imaan karta cudurka covid-19 ra'iisul wasaare rooble oo arrimaha doorashooyinka kala hadlaya dowladda dalka turkiga al-shabaab oo dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaal ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamadii diidanaa muddo kordhinta farmaajo maatay laga saaray magaalada muqdisho madaxweynaha puntland oo socdaal gaar ah maatay ku tagay magaalada addis ababa ee dalka Itoobiya khasaaro nafadeed oo ka dhashay roobab ka da'ay shalay ilaa iyo xalay magaalada muqdisho goobaha biyo fariisinka magaalada dhuusamareeb oo maatay dib u dayactir lagu bilaabay amiirka dowladda qatar oo ka hadlay dib u soo noqoshada xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Kenya dowladda Kenya oo war ka soo saartay go'aankii dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya wararka dibadda raadiyo baraawe iminka ugu waaweyn waxaa ka mid ah ruushka oo ka walaacsan dhaqdhaqaaqyo ciidan uu Mareykanka ka wada bariga dalka Syria waryaa weheliye walaalo waqti yar ka hor waxaan ku arkayay inaad isla waramaysay sidee wax u jiraan bal ii sheeg walaasheedii wanaagsaneed wax kale ma ahee warshadii aan furi bari dhoweed waqti badan igu qaadatay wixii hanti aan lahaa anoo waxba ka reebin wixii ay soo saarto wax kam yiraahdo waan ka waayay magaalada maxaad igu waanin lahayd wehliyow warba kama haysid miyaa in laga furay magaalada baraawe idaacad ku wanaagsan xayeysiinta walaasheedii warka ma haay halkuu ku yaalaa raadiyo baraawe idaacadda raadiyo baraawe waxay ku taalaa dhabarka dambe xarunta shirkadda Somtel haddaba dadweynow ha moogaanina hana ka maqnaanina inaad booqataan raadiyo baraawe wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartaan lambarada kale ah leelen 67 ama eber 6 ama eber 6 balanteenu waa raadiyo baraawe raadiyo waa jimco taariikhdana waxay ku beegan tahay 5 bisha 7 sanadkuna waa 2021 warka waxa idiin soo saaro idiin warami doono anigoo ah Cismaan Awisbaar warkii oo dhan madaxweynaha mudxiraydkiisa dhamaade maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu maatay walwal ka muujiyey halis ka imaan karta cudurka safmarka ah ee covid-19 sida warkan uu ku dheereenayo waryaheena Mukhtaar Aadan Maxamed madaxweynaha mudxiraydkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid ah dhakhaatiir iyo adeegayaasha caafimaad ee la tacaala xakamaynta cudurka covid-19 ayaa ku bogaadiyey dadaalada ay ka bixinayaan ilaalinta badqabka caafimaadka ee shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa soo bandhigay dadaalada dowladda ay gelisay kor u qaadida adeega caafimaad ee dalka iyo guulaha la taaban karo laga gaaray xakamaynta cudurka covid-19 waxa weeye waxaa mahadsan wasiiradda iyo wasiir ku-xigeenka iyo howlgallada wasaaradda iyo cisbitaalada guud ahaan dhakhaatiirta u soo jeeda habeenii maalin waxaa tihiin hadeeyo xaqiiqatan waxaa tihiin geesiyaal yaa tihiin usoo jeeda habeenii maalin sidii ay u badbaadin lahaayeen waalahoo safmarkaa covid-19 usoo ritay aad iyo aad ayaan runtii kaga mahadcelinaynaa oo waxaa qabateen waa wax runtii aad iyo aad ladinku ammaano ladinkugu faano maxaa yeelay cudurkan safmarka ah wuxuu soo maray wadamo badan oo aad iyo aad looga horeeya boqolaalo sano soo isnaa hay-adahooda caafimaadka dhakhaatiirtooda meelaha ugu sarreeya ka jooga adduunka sida ay u dheeliyeen dhibaatadiisa iyo dhimashadiisa oo weliba qaarkood ay yidhaahdeen sida talyaanigo kale awooddeena waa ka baxsan tahay ilaahan u deynayna ay yidhaahdeen waxaan aragnay first world war kow ka yahay maraykanka khaasatan stateka la yidhahda new york
oo runtii state aada advanced u ah aada u horumarsan dhanka caafimaadka ay ku dhacday wax mucjiso ah ay controli waayeen oo ay faraha ka baxday oo runtii dhimashaduna ay aada u badatay guud ahaan marka haddii dadkii dhisnaa oo aan weligood labada dhulka arag oo dhaqaale ahaanna dalabka ugu horreeya dhulka ah iyo technologyba ay xakameyn waayeen cudurkan sida annaga aan u xakameyn annagoo weli ku jirna kabasho 30 sano dhibaataa ku jirnay dhakhaatiirteena capacitygooda laga yaabo inuusan lamid ahayn kuwaas wasaaraddeena weli ay dhismayso hay-ad ahaan ay dhismayso annagoonan filayn dhaqaale xumo ayna hayso iyo sida aad runtii u dadaashay kartidayna aada u muujiseen iyo howlkarnimadeyda wax la tilmaamo weeye oo runtii lagu siiyo abaalmarin xaqiiqatan cudurkan safmarka ah wax badan ayaan ka barno saa sheegteen inkastoo kii dambe weyfkii labaad uu dad badan oo runtii bulshada dhexdeeda magac wanaagsan ku leh kana tilmaama ee laga geeriyooday allah u naxariisto intii dhimatay iyo waalidiinteena kulligeed intii weli hadda u xanuunsana ilaahay haka keliyo runtii wuxuu ahaa weyfkan weyf aada iyo aada u qareer aada iyo aada u culus naxdin badan iyo tiiraanyo badan runtii noogu reebay yuu ahaa haddana saa sheegteen waxaa soo socda weyf kale oo saddexaad marka inaan isu diyaarino oo aan helno dad idinkoo kale ah oo haweenna ah oo hayeeye ah oo sidaa sheegteen reerihiinii iyo caruurtiinii iyo noloshiinii raaxada lahayd oo deganayd aada uga soo baxdeen si aada waalihiin iyo waalidiintiin aada badbaadisaan inaan helno dad idinkoo kale ah dhalinyaro ah oo diyaar u ah inay iyagu qeybtooda qaataan waa inaan isku diyaarino waxaan isku diyaarinaynaa in aan talaalka dadka ku dhiirigelino talaalka anigu waa qaatay dad badan way qaateen wax dhibaato ah malaha waa ka hortag ka hortaga boqolkiiba uu ka fiican yahay ka dabatag yuu ka fiican yahay marka ilaahay baa runtii talada iska leh oo talada saarno waa kalama weye laakiin dadaal ma reebaa marka inaan ku dhiirigelino oo aan aada uga hadalno talaalka dadku inay qaataan maxaa yeelay waa cudurkii baan ka hortagayno lama oran karo boqolkiiba boqol kuu dhici maayo lama arag scientifically lama arag laakiin haddee in la dadaalo qof walba inta uu kari karo inuu dadaalo oo si alla sida isu ilaalin karo isu ilaaliyo talaalku koo ka yahay face maska nadaafadda in la kala fogaado space la siiyo in la taxadaro waa dad marmarka qaarkood dad ehel ah qaraabaha waalida xanuunsanaya waad soo ziyaarinaysaa inaad taxadarto oo qof walba uu taxadaro ilaahay nooga dhigo weyfka soo socda ama ka nafsigiisa mid aan ka adkaano oo loo furado ilaahay ha ka dhigo mid ilaahay lacag baraya ha ka dhigo oo jismigeena u ahaa mid iska difaaca laakiin in aan wacyigelinta xoojino oo aan hila utbaano aan dadku digno way wanaagsan tahay guddigii la sameeyey inuu si joogta ah u kulmo oo dadku wacyigeliyo waa loo baahan yahay marka dadaal way hadda wax noo yaala iyo ilaahayna tawakalno waa dhab labada isbitaal waa ku fakarnay laakiin haddee ma qaadi karo magaalada saddex milyanka ma qaadi karo oo waxaa laga yaaba dad badan inaysa soo gaarin isbitaalka soo gaarin laakiin haddii aan isku tashano xooggeena iyo awooddeena aan isu geyno waxaan aaminsanahay in wax badan aan qaban karno ganacsatada waa loo baahan yahay in la kaashado oo ay qeyb ka noqdaan hawshaan ay qeyb ka noqdaan maxaa yeelay naftooda waxaa saaran mas-uuliyad yaa bulshada ka saaran marka bulshada caafimaadka qabna
waa bulshada ganacsiga samaysa ama ganacsiga laga sameeyo marka inay iyagoo qayb ka qaataan waan u mahadcelinaynaa waxaan ogahay inay qayb ka qaateen oo runtii ay dadaaleen laakiin inay intaas uga sii dhawaadaan oo dadaalka ay xoojiyaan dhakhaatiirta naftigooda in aan ka baranay waxyaabihii naga halaabay iyo weaknesskeenni iyagoo naftooda ay qayb libaaxa ka qaataan kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta Marwe Foosiye Abikar Nuur iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Axmed Xuseen Macalin ayaa takhaatiirtu waxa ay madaxweynaha kula wadaageen warbixin ku saabsan halista cudurka safmareenka ah COVID-19. mahadsanid mukhtaar aadan maxamed iminkana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya mudane maxmed yilmis rooble ayaa kala hadlay safiirka xoojinta iskaashiga iyo xiriirka labada dal iyo arrimaha doorashooyinka dalka wuxuuna sidoo kale ka dalbaday in dowladda turkiga ay kaalin wanaagsan ka qaadato arrimaha dib u heshiisiinta soomaaliya iyo doorashooyinka dalka dowladda turkiga ayaa ka mid ah dowladaha taageerada buuxda siiya soomaaliya waxa ayna tababar siisaa inta badan qeybaha kala duwan ee ciidanka dowladda waxaana sidoo kale ay kabid ku sameysaa miisaaniyadda dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya iminkana hiiraan wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa waxay ku waramayaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa waxaa la soo warinayaa inay dagaal kula wareegeen deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle fuaad shooble kafe ayaa warkan sii dheereenaya wararkan ka helayna deegaan ku dhow degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in gelinkii dambe ee shalay halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidanka maamulka hirshabelle iyo ururka al-shabaab dagaalkan ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii al-shabaab ay weerar dhowr jiha ah ku qaadeen deegaan lagu magacaabo taydaan oo ku dhow degmada maxaas oo ay ku sugnaayeen ciidanka hirshabelle al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda dhinaca internetka ayaa waxay ku in ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka taydaan kadib dagaalkii halkaasi ka dhacay sidoo kale shabaabka ayaa waxa ay intaasi ku sii dareen in xilliga ay weerarka ku qaadayeen deegaanka uu ku sugnaa gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyo ciidamo ilaalo u ah kuwaasi oo ay sheegeen inay aadeen dhinaca maxaas weli si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalkii dhacay mana jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka hirshabelle iyo saraakiisha ciidamada xoogga qaybta 27 ku saabsan la wareegidda al-shabaab ee taydaan si kastaba dagaalyahanada ururka al-shabaab ayaa dhowr jeer sidan oo kala qabsaday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan walow ay dib isaga baxeen ayaan markii dambe la wareegeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka hirshabelle fuaad shooble kafe aad baad u mahadsan tahay haatana muqdisho ciidamadii diidanaa muddo kordhinta ee madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa la soo warinayaa inay saakay ka ambabaxeen qeybo ka mid ah goobihii furmaha ay ka sameysteen magaalada muqdisho sida xogtaasi aan wax badani uga ogaano waxaa iminka qadka si toos ah ugu jiro wariyeyna cabdifataax muumin ilka case cabdifataax soo dhawow marka hore jimco wanaagsan ismaana waad mahadsan tahay waan ku dhowahay guud ahaan ciidamadii fariisimada ka sameystay magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinka hodan yaaqshiid howlwadaag ayaa gebi ahaanba saaki isaga baxay iyagoona markii hore ay ka yimaadeen ciidamadaasi gobolka shabeellada dhexe ciidamada ayaa markaasi waxaa shalay kormeer ugu tegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble isagoona tegitaankiisa ay ka horeysay heshiis ay horaantii bishaan ama bilowgii bishaan ay wada galeen midowda murashaxiinta iyo weliba xukuumadda xilgaarsiinta uu markaasi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu horkacayo sidaa ka wareysana xukuumaddu waa tii loo dhiibay hogaaminta iyo amniga doorashooyinka dalka oo muran badan ay ka taagneed iyadoona 12 bishii April ayna dhaaftay muddo kordhinta markii baarlamaanka Soomaaliya ay u sameeyeen madaxweyne Farmaajo oo xilligaasi ka dambeeyay ciidamada ayaa iyagu waxay soo galeen magaalada Muqdisho iyadoona kalaasa siyaasadeed ka abuuray magaalada Muqdisho qaar kamid ah wadooyinka Muqdisho ay qayb ka tahay wadada Makal Mukarrama oo qayb kamid ah ay xireen
fariisan ay ka samaysteen degmooyinka ama xaafadaha Barmuudo iyo waliba Siigaal oo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale qaybo kamid ah hotelka Weeliye dhabarkiisa dambe oo howlwadaag ka tirsan iyadoo magaalada Muqdisho maalmo kooban ay ahayd mid taag uu ka jiray marba marka ka sii dambaysa ay dadka Muqdisho ka baqin qabeen in lagu dul dagaalamo inkastoo habeena inta lagu guda jiray bishii Abriil ay ku dagaalameen ciidanka dawladda iyo sidoo kale ciidamada mucaaradka iyagu diidanaa muddo kordhinta ay xaafadaha ama degmooyinka Hodan iyo howlwadaag isaga barakaceen dadkii shacabka ahaa sidoo kale waxaa jiray dibadbaxyo looga soo horjeeday madaxweynaha madaxweynekiisu ilaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo dadka shacabka ee dhigaya inta badan ay diidanayeen ciidamaduba muddo kordhinta loo sameeyay madaxweyne Farmaajo oo 8 February ay ku egeed madaxweynekiisa Ismaan wixii xilligaasi ka dambeeyay dabiyaaqadii bishii Abriil baarlamaanka Soomaaliya markii uu hortagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dalbaday in dib loogu laabto heshiiskii 17 September ayaa markaasi waxa ay arintaasi ay fududeysay in la kala qaado ciidamadii heshiisna ay wada galaan mucaaradka iyo waliba xukuumadda oo iyada lagu wareejiyay hogaaminta doorashooyinka amnigeeda wala murashaxiinta mucaaradka iyagu ay dalbanayeen in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Rooble inkastoo Rooble uu ka diiday uu sheegay in amniga guud ee dalka uu madaxweynuhu mas'uuliyadeeda uu qaadayo balse tan doorashada iyo waliba hogaaminta doorashada uu madax banaan yahay ra'iisul wasaare Rooble horaantii bishan oo aynu ku guda jirno waxa uu sheegay in amniga doorashooyinka iyo sidoo kale hogaaminta doorashada lagu wareejiyay isaga kadib markii beesha caalamka markii kulan uu la qaatay galabkii Arbacada ahayd uu shaaciyay in ciidamo gaar ah oo ka madax banaan Villa Soomaaliya iyo waliba iskala tashan doonaan mucaaradka la keeni doono Muqdisho kuwaas oo iskaashi dhexmari doona iyaga iyo waliba mucaaradka lagu dhisi doono kuwaas oo masuul doona amniga doorashooyinka dalka haddii aan dib ugu soo laabtay ciidamadii maanta isaga ruqaansaday magaalada Muqdisho isagana baxay furumihii ay ku sugnaayeen furumaha ay ka bixeen waxa kamid ah xaafadaha qaar sida aan ku soo sheegay Hodan iyo howlwadaag oo ay fariisimo ay ku lahaayeen sidoo kale isgoyska Fagax ayaa kamid ahaa oo yaaqshid ka tirsan iyo waliba Miniraayo iyaduna ka tirsan degmooyinka Kaaraan iyo Cabdicasiis kala qaybisa marka gaabaan ciidamadii way isaga ruqaansadeen way isaga baxeen mas'uuliyiin ka tirsan murashaxiinta mucaaradka waliba siyaasiyiin iyagoo halkaas warbaahinta la hadlaya sheegay in ciidamaan gabi ahaan ay isaga baxeen magaalada Muqdisho ayna u qasnayaan dalkan gobolka Shabeellaha Hoose ay isaga baxeen fariisadii ay ku sugnaayeen ciidamaduna ay noqon ay yihiin kuwa markaas la dagaalami doona al-shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta xildhibaano ka tirsan sida xildhibaan Mahad Salaad iyo xildhibaan Jawaa ayaa iyagu waxay sheegeen in ciidamada ujeedkii iyo hadafkii Muqdisho yimaadeen markii hore bay ahaayeen muddo kordhinta sharci darrada ahayd ee baarlamaanka Soomaaliya ay u sameeyeen madaxweyne Farmaajo ugu dambeynna maanta gabi ahaan bay isaga baxeen ciidamadaasi magaalada Muqdisho fariisimo ay ku lahaayeen sida isgoyska Miniraayo oo yaaqshid oo ka tirsan Kaaraan iyo waliba kala qaybisa degmada Cabdicasiis isgoyska Fagax iyo waliba xaafado kale dhowr oo iyaguna yaaqshid ka tirsan oo ciidamadaas ay ku sugnaayeen inta badan laga soo abaabuli jiray banaanbaxyada ama dibadbaxyada looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo gabaan hadda waxaa la wareegay ciidanka dawladda xubnihii murashaxiinta ciidamadooda kuwii taageersanaan oo militariga Soomaaliya ka tirsanaa Shabeellaha Hoose Shabeellaha soo galana maanta gabi ahaan way isaga baxeen Shabeellaha Dhexe gabi ahaan baa isaga baxeen ay urqaasdan markii hore ka yimaadeen waatay Cabdifitaax oo aad u mahadsan tahay waa Shabeellaha Dhexe ra'iisul wasaare Rooble ayaa ku wareejiyay goobaha la furay jidadka mirnaayada ciidanka booliska iyadoona goobjoog uu ka ahaa taliyaha booliska meelihii ay ka baxeen ciidankii ka soo horjeeday waqti kordhinta dawladda hay'adaha ay u sameeyeen baarlamaanka Cabdifitaax ma soo noqdeen dadkii halkaasi ka barakacay ama shacabkii deganaa inkastoo maalmihii la soo dhaafay si tartiib ah oo ay dib ugu soo laabanayeen dadkii shacabka ahaa xaafadaha isaga barakaceen haddana ma muuqato in si rasmi ay ugu soo laabtaan balse dadka waxaa moodaa iyagoo qaarkood baqtin ay qabeen markii heshiiska la gaaray kadib wixii ka dambeeyey waxaa moodaa in dadka si aayar ama tartiib dib ugu soo laabanayaan guryahoodii ay markii hore ay ka barakaceen dadka qaarkood maalinka ay barakacayeen qaarkood oo reedi baraw la hadla waxay sheegeen
in dhibaato ay ku qabaan iyadoo bil barakaysan ay tahay haddana munaasabada ciidi ay fooda kusoo leedahay in xilligan xilli barakac ee magaalada muqdisho ay noqoto ciidamada isku hor fadhiyaan inay tahay arrin aad u falxun walaacna ay ka muujiyeen balse ugu dambeyntii dadaalo badan ay sameeyeen beesha caalamkii qaramada midoobay weliba dowladda mudaxileedkeedu ilaaday hay-adaheeda dowladda ayaa ugu dambeyntii lagu guulaystay in ciidamadan gebi ahaanba laga saaray magaalada muqdisho dibna loogu celiyo xerihii ay kasoo barakaceen oo markii hore ay ka yimaadeen marka xaalka muqdisho shalay ilaa maalinkii ka horeysada ee maanta way ka duwan tahay dadkuna waxay dareemayaan reereen iyo farxad aad u daran waayo ciidamadu waxay ahaayeen kuwa aad looga baktin qabo xitaa qaarkood markaa wejiyadooda aad eegto oo ay ka duwan yihiin ciidamada kale oo waxaad is leedahay ma 91 miya dib loogu laabanaya marka magaalada muqdisho damageedu uu ka duwan yahay inkastoo horumar ganacsi iyo bilic soo celin balaalan ay sanadihii ugu dambeeyay ay sameynayso koobca dhaqaalaha uu sare u sii kacay ganacsatada badan ay iyagoo dalka iyo dibadda isku sugan maalgashi ay ku samaysanayeen muqdisho dad far badan ay isweydiinayeen daarahan dhaadheer iyo bilicdan hadda soo laabatay miya haddana dib loogu laaban doonaa 91 su'aalahaas baa inta badan taagnaa balse ugu dambeyntii wixii ka dambeeyay baarlamaanka Soomaaliya markii muddo kordhinta ay ka laabteen dib loogu laabanayo heshiiskii 17 September ayaa dhalisay in marka rajadii shacabka dib u soo laabato marka su'aashaan haddaan dib ugu soo qaato dadka shacabka weli si rasmi aysan u soo wada noqon laakiin si tartiib ay dib ugu soo laabanayaan guriyihii markii hore ay ka barakaceen dadka shacabka waa tahay cabdifataax aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal kaasi waa wariyeyna cabdifataax muumin ilka case oo ka mid ah wakiil wareedyada raadiyo Baraawe ugu soo warama magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isla arrimaha muqdisho ayaan ku gudu jirnaa dhanka kale haddii aan eegno waxaa la soo warinayaa khasaaro nafadeed inay ka dhasheen roobab muqdisho ka da'ayay xalay ilaa iyo saakay sida warkan uu ku sii dheereynayo wariyeyna Fuad Shooble Cafe warar dheeraad ah ayaa laga helayaa caruur ku geeriyootay guri ku yaala xaafadda Buulaxuube ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kadib markii guriga ay ugu galeen daadadkii ka dhashay biyaha roobabka ka da'ay magaalada Muqdisho dad ayaa waxa ay ku warameen in caruurta ay biyo fara badan ugu galeen gurigii ay ku sugnaayeen waxaana goobta ku geeriyootay in ka badan 6 caruur oo qaarkood ay biyuhu roobka ay qaadeen rag dhalinyaro ah oo degan xaafadda Buulaxuube ee degmada Wadajir oo gurmad sameeyay qoyska ay caruurta ka dhinteen ayaa soo badbaadiyay caruur kale oo ku jiray guriga sidoo kale guriga ay biyaha roobka ka da'ay magaalada Muqdisho galeen ayaa qayb ka mid ah soo dumay sida lagu arkay sawiro laga soo qaaday gurigaas waxaana dhex ceegaagaya biyo badan maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Wadajir ayaana weli ka hadleen caruurta ku geeriyootay guri ku yaala xaafadda Buulaxuube waxaana xiliyada roobabka da'aan dhibaatooyin la kulma qoysas danyar ah oo guryahooda ay galaan biyaha roobka saacadii la soo dhaafay ayaa waxaa caasimadda dalka ee Muqdisho ka da'ay roobab xoogan oo biyo dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana jawiga maanta uu yahay mid qawow ah xilli maalmihii dambe la dareemayay kulayl aad u daran mahadsanida Fuad Shooble Cafe imikana Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa wuxuu maantay socdaal gaar ah ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sida warkan uu ku qaadal dhigayo wariyeyna Mukhtaar Aadan Maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi ay hogaaminayo oo ka amabaxay Garoobe ayaa fiidnimadii xalay gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa garoonka diyaaradaha Addis Ababa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan Itoobiya waxaana intaa kadib la dejiyay halkii loo qorsheeyay asiga iyo wafdigiisa madaxtooyada Puntland oo ka hadashay safarka Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegtay in madaxweynaha uu safarka gaar ah u aaday magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya inkastoo safarka Dani faahfaahin ka bixin warar la helay ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani kulamo kala duwan la qaadan doono madax ka tirsan dowladda Itoobiya isagoona kala hadli doono arrimo kala duwan Puntland ayaa xiriir toos ah waxa ay la leedahay dowladda Itoobiya kaasoo ku saabsan dhinaca amniga iyo ganacsiga ayada oo sidoo kale shirkadda Airlines Ethiopia ayadoo si toos ah u timaado deegaanada Puntland mahadsanid Mukhtaar imikana
akhbaaraadka caalamka warka raadiyo baraawe haatan raajka ciidamada ruushka ayaa waxay sheegeen inay xadgudub weyn ay tahay isbahaysiga caalamiga ah ee Washington ay hogaaminayso oo dhaqdhaqaaqyo ciidani ka wada bariga waddanka Syria. afhayeen u hadlay ciidamada ruushka ee jooga Syria ayaa sheegay in dowladda Syria ay arrimaheeda gudaha u madax bannaan tahay sidaasi darteedna la ixtiraamo madax bannaanida dalkaasi. afhayeenka ayaa sheegay in dagaalka ay kula jirto Syria waxa ugu yeeray argagixiso. sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamada sida sharci darrada ah ku jooga Syria maadaama ay dowladdu u yeertay warkii aad kala socoteen dhegeystayaal raadiyo baraawe xilligan akhyaaray waanigeynta waadna ku mahadsantihiin la socodka warka raadiyo baraawe waxaa idiin soo saaro idiin warramaya anigoo ah Cismaan Baxar Baraada ayaa farsameynaya. nabadgelyo. dacdo kasta sheeka ayaa ka dambaysa. ani gaari aan wati ayaa jira oo si special aan u shaqeynayo. waxaa idiin soo gudbinaynaa waxa dhacaya xilliga ay dhacayaan iyo sida ay u dhacayaan. waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado waxyaabaha soo socda. dacdo kasta sheeka ayaa ka dambaysa. halkani waa Baraawe. wariyuhu wuxuu u kurgalayaa dhab ahaanshaha dhacdada, iska xaqiijinta ilaa xogta laga helayo si loo helo warar sugan oo xaqiiqo ah. marka aan 85 aan tagay waxaan tagay El Jaale. dhegaysta ku xirnow raadiyo Baraawe si aad ula socoto guud ahaanba dhacdooyinka dalka iyo dibadda.